والبلابان هاي ولا بتيما تشوغو ولا ديري ما تشوغو إلهي وسيمي نقول إلهي وسيمي نقول ولا ردي ما يكلك عيسى باي ولا ردي ماركن ما قرري ولا أركتونو يا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan oo waxaan dhammaan asxaabtan ugu xiran waxaan maanta iskor taagaynaa muuqaal runtii aad looga murugoodo saacadihii ugu dambeeyay social media ka socday muuqaalkaas oo muujinaya gabar Soomaaliyeed oo Jarmalka ku dhaqan. gabadhan Soomaaliyeed waxay muddo ku noolayd dalka Jarmalka gaar ahaan waxay ku xariisneed meel kaam ah oo iyada iyo dad kale oo Soomaaliya ay muddo halkaas kula xariisnaayeen. marka dalka Jarmalka Soomaalidu marka ay tagto waliba qaarkood iyagoo dhan maahan waxa la sameeyaa dadka aan sida legalka ah ku tagin Turkiga ha ka tageen ama dhinaca Greece ha ka galeen ama Poland ha ka galeen dhinkay doonaan ba ka galeen. Soomaalida dhulka martay ama sida sharciyada darrada ku gashay baan dhahnay Jarmalku waxay sameeyaan xiriir ku xareeyaan lagu kala ogaanayo xaaladahooda ka bacdina wixii markaas macquul ay u arkaan ama sharci in la siin karo ay u arkaan markaas ay sharci siiyaan. gabadhan waxay ka mid ahayd dad muddo 5 sano ah meeshaas ku xareysnaa runtii dadka markii meeshaas lagu xareeyo qof walba waqtiga uu marka sharci u soo baxo ama in noqoto inuu banaanka uga baxo uu isaga baxa meesha isaga faaruqa. marka gabadhan way ku daahday muddo 5 sano bay joogtay 5 sano meeshaas ay joogtay waxa u dheeraa sidaan ka dhadhansanayno hadalkeeda Soomaalidii meesha joogtay yani isku diirka ahaayeen isku dadka ahaayeen isku diinta ahaayeen dhibaato fara badan u geysteen. dabcan dhibaato in lagu geystaa dhibaatooyinku kala duwan yihiin qofka haduu wax nabar kugu dhufto ama physical ahaan wax la muuqdo markuu qofku kugu dhufto iyo markuu maskaxiyan ku dhaawaco ama damiir ahaan ama jir ahaan markuu ku dhaawaco labay kala tahay. gabadhan waxa loo dhaawacay maskaxiyan mentally ahaan ba gabadhan loo dilay sida hadalkeedaba ka dhadhamaya. Soomaalidu waxay tiraahdaa been way sheegtaa laakiin kuma mahmahada la yiraahdo. waxa jirta maama Soomaaliyeed leh ama qof xoogaa Soomaali dhexdeed dhibaato ka tabanaya oo kale maama inta badan ay adeegsato waxa jirta la dhaho Soomaalidu sunta hargaha markaan oo kale markaad u fiirsato waxaad dareemaysaa inay mahmahadaasi runta inay mahmahadaasi ina been ahayn ay waqti munaasaba la bixiyay runna ay tahay. maxaa yeelay qof fayow oo caadi ah oo aan waxba qabin oo dareenkiisii joogo oo dabcan aan oran karo hadallada gabadhan markay hadlayso hadallada ay haleelayso iyo yani kelmadaha ay ku hadlayso qof fayow ama dad badan oo maanta dhageysano ama dhigta aan u raaricin bay runtii ka hadalla toosan tahay baan oran karaa. in badan oo fayowna uma ba hadli karaan sidii u hadlayso man oran karaa. runtii waxaad dareemaysaa inay aad u barooranayso oo aad dhulka isula dhacayso oo yani aad iyo aad u muujinayso xanuunka iyo dhibaatada la gaarsiiyay inay aad iyo aad yani uga danqanayso inay muujinayso way ku tusaysaa. waxay sheegaysaa in aabaheed uu dhintay oo aaba maanta u nool una jirin. sidoo kale sidaan hadalkeedaba ka dhadhansanayno wax kale oo ehel ah oo maanta yani iyada wax ugu yaala inaynan jirin ama walaal ha noqoto ama adeer ha noqoto ama abti ha noqoto ama yani waalid ha noqoto ama walaal ku doonaba ha noqde wax ugu yaala maanta oo iyada dhibaatada ay sheeganaysa ka tabata bixin kara inuu jirin. wax kale oo runtii kelmadda aadka ii soo jiidatay ay tahay marka ay leedahay macawradiini bad caayaysan macawradiini bad banaanka keenaysan. dabcan waxa laga yaabaa hadalkan gabadhu ay ku dhawaaqayso in dad badan oo videogigan daawanaya inaysan fahmi karin laakiin marka gabadhu saas leedahay dad yani wadan walba cawru leeyahay wadan walba cawradii ka hadlayso waa cawradii dalka bay ka hadlaysaa waa cawradii dalka maaha cawradii shakhsiga ama qofka waxay ka hadlayso. cawrada dalkan waa maxay de cawrada dalka waxay noqonaysaa de waa maxastaada iyo haweenkaaga ubadkaaga wixii birimageyda waxyaabahaas waxa la isku yiraahdaa cawrada dalka weeyaan waa cawrada dalka. intaas haday banaanka ku soo dhacaan qofkaas cawradaadii waa banaanka taala dalkaasi cawradiisii banaanka taala. de cawrana maanta noobaba dhowrnabo waxa la yiri nin qoyan biyo iskama dhowro cawro maanta meel noo taala ama noo dhowrsan baan ba jirin. maxaa yeelay Soomaalidu meel walba ku firqsan tahay maanta adduunyadii meesha wadan allaale wadanka tagto 190 iyo dhowrka wadan ee caalamku ka kooban yahay wadan aynan maanta Soomaaliya joogin ma jiro. marka cawro noo laaban baan ba jirin oo meel kastaan maanta
Soomaalidu ku dacdaraysan tahay ku dhiban tahay daadsan tahay marka cawran hore noogu qarsoonayd baan jirin laakiin haddana in la sii faagfaago oo la sii fagfago oo annaga dhexdeena aan cawradii yani sii faaqidna waa nasiib darro waa waxyaabaha nasiib darrada bay kamid tahay waxa kaloo ay ka dhawaajinaysaa inantu ama gabadhu ay ka dhawaajinaysaa kelmadda qabyaalad bay dhowr jeer kusoo celcelinaysaa waxa marka halkaas ka dhadhamaysa in ayada qaab qabyaaladaysan loola dhaqmay waxa ula dhaqmaynaya inay ahayn dumar ay yihiin rag ay u badinayso dhibaatooyinka ina haystaa waxaa ka mid ah dalkii haddii laga soo tegay xitaa oo dibadihii la yimid weli qabyaaladii iyo nin jeclaysigii iyo haddaanu reer hebel nahay iyo weli sideedii bay u socotaa weli sideedii bay u socotaayo ummaddu kama waantoobin ilaa iyo hadda lagama waantoobin oo wixii dalka kaa keenay qaxootiga kaa dhigay duruufahan adag ku baday yani maanta sharafkaagii iyo qiyamkaagii iyo qarannimadaadii qaxooti hal mar u bedelay wax kale maahayn qabyaalad buu ahaa qabyaalad iyo dagaal sukeeye iyo isriix iyo annagu haddaan reer hebel nahay iyo waxyaabahaasay ahayd wixii aad يعني soo aragtay meeshaad cashar ka qaadan lahayd ilaa dambas waxa la yiri dab niman ku joogsanay dambas kama fogaado yani dambas inta shalay ku joogsatay aad ogeyd inay dhuxul nooli ku hoos jirto haddaad weli agtaadii ku sii wado maxaa lagu qiyaasi karaa ma qof waalan baa tahay mise qof ayuu baa tahay waxaan hadda ka uga jeedaa qof wixii shalay uu ku gubtay dhibaato inay leedahay uu arkay yani dhibaatada iyo rafaadka iyo qaxa iyo burburka iyo wixii laga dhaxlayna arkay haddana weli ku sii degan weliba isagoon dalkii joogin ka wadamo sharci leh tegay wadamo kala dambayn leh tegay wadamo horumaray tegay haddana wixii aan weli ka tanaasulin wixii ku degan weli qabyaaladii ku degan weli haddaan reer hebel lahay maxaa lagu tilmaami karaa ma gabadhan baa waalan mise qofkaas baa waalan waa su-aasha runtii mudan in la isweydiiyo waa su-aasha mudan in la isweydiiyo waxay yidhi abwaankii dalla'aani wow kow dhulay dib u lahaadaane dabadaha ha meereen ilan diida nabadiiya buu yidhi markaad nabadda diiddo markaad qarannimada diiddo markaad diiddo noolaansho iyo nabad iyo qiyam iyo lahaato oo ade caqligaagu ti shaqayn waayo baryahan dambe waxaa socota kelmada lahaa caqligu ha shaqeeyo oo baryahan dambe siyaasiyiintu isticmaalaan markii caqligu shaqayn waayo caqligu markuu shaqayn waayo oo dee sida xayawaankii loo dhaqmo tanoo kale dhashaa tan oo kale dhashaa waa waxa maanta aynu ku jirno dullinimada maanta aynu ku jirno weligeedna laga bixi mayo ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu qur'aankiisa ku leeyahay in allaha laa yugayiru biqowmin xataa yugayiru maa bianfusihim ilaahay qoom ma bedelo ilaa ay iyagun naftooda bedelaan marka annaga ilaa aan isbedel la nimaano waxba bedelmi mayaan ha sugina in hal mar intay يعني ملائكة لو صدروا أما دي الكورة عركة وحكسوا دعان يسبدل يماد هالسجينة مركات كلب كان داوت على وشة كويسة قف كي الدمير له صومالي نما له ضد نمو الصومالية دي ضد نما يكون ضبيسة رنتي على وشة كوية مركا وقد ضمين ولا شيء وحان كله هاي طبعا ما قرنا يصير وفيديو جيجو كوسو جاري دونه لكن هدي بقى يدعو إنه فيديو جيجو كوسو جارو أما أتعرفتو أما داوته وحان كله هاي waalnid markaan anigu fiidiyoyadaada daawaday ama aan arkay in badan oon maanta fayoobi ku tirino ama yani aan u aragno dad fayow oo aan waalayn oo caafimaad qaba ayaad kaba sii caafimaad qabtaa kana wanaagsan tahay marka loo eego xagga mentaliga iyo maskaxda marka loo eego alxamdulilah walaashay is astur dharkaaga xiro ilaahay bari cid wax ku haysaa male sidad u sheegtayba adoon Allah baa tahay adoon ilaahay baa tahay cid wax kugu saaidin kartana ma jirto cid wax ka naaqosin kartana ma jirto adduunyada oo dhan haday isu tagto oo isku dayaan inay wax ku yeelaan waxba kuma yeeli karaan haddii adduunyada oo dhan intay isu tagto isku dayaan inay wax ku taraan waxba kuma tari karaan wax walba waxay ku socdaan mashiicada Allah subhanahu wa ta'ala الله سبحانه وتعالى بريبان كلية ولا شيء إلهي بوجها جها كوديو إلهي دي بهتدك وهي ستانا هكادو القاضو سومالي دنا إلهي حق حطوسو انت حنونسن إلهي حنون كودا عافيمادها وجوب الدرو انت عافيماد قبتنا الله سبحانه وتعالى عافيماد كودها وزياديو انت دبعتيسن الله سبحانه وتعالى دبك هكا كورقاضو انت كلام مغنى الله سبحانه وتعالى هايسوكينو انتنا دبعتينا الله انحريستو وانيقو ولكن ساعد حاجة أدنا وإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته